maalmaha ka mid ah Shabeel ayaa raacay saaxiibkii oo libaax ahaa si uu uga barto qaababka loo ugaarsado. Intii sii socdeenna waxa uu arkay shabeelku waraabayaal dabayaacaya. Kadibna libaaxii ayuu weydiiyey maxay waraabayaashu naga dabayaacayaan, laakiinse uma jawaabin libaaxu. Way socdeen, libaaxii ayaana helay ugaadh. Markaasay bilaabeen waraabayaashii inay qayliyaan. Shabeelkii ayaana weydiiyey libaaxa maxay la qaylinayaan waraabayaashu. Umanu jawaabin libaaxu sidii markii hore oo kale. Wuu ku booday libaaxii ugaadhiisii oo u eryaday. Waraabayaashiina way dabayaaceen iyagoo qaylinaya. waxaanu arkayay shabeelku inaanu dhinacooga eeginba oo uu iska sii watay eryashada ugaadhiisa ilaa uu soo qabsaday. waxaanu bilaabay inuu cuno halka ay waraabayaashii dusha ka soo daawanayeen. inta uu dhammaysanayay cuntadiisa ee uu iska tegayey, markuu tegay waxay ku soo yaaceen waraabayaashii hambada si ay u cunaan lafaha iyo saadii uu ka tegay libaaxu. waxa uu la yaabay shabeelku dhaqanka libaaxa, waxaana uu ku yidhi maxaad isaga eryi weyday waraabayaasha? waxaan moodayay inay kugu soo yaaci doonaan oo ay ku dili doonaan. libaaxii ayaa yidhi oo miyay ku dhacaan inay igu soo yaacaan? dhegeyso saaxiibkayow, noloshaada ha u fiirsan waraabayaasha. waxa kaliya ee ay samayn karaan waa inay kugu qaylqayliyaan si ay kaaga mashquuliyaan hadafkaaga, mana awoodaan inay kaa qaadaan waxa aad adigu rabitaankaaga uga tagta mooye. ha u fiirsan codadka ka soo baxaya wax walba oo kaa hooseeya si aanay martabadaada sare kaaga soo dejin.